السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل تونا سندا ودليل هانتي بملك السؤال جوكتان kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegno ganacsiga muddooyinkii dambe ka hirgalay magaalada Buuhoodle sanadkii 2019 sanadka gabagabada ay ku guda jirnay ganacsiga magaalada Buuhoodle ayaa muddooyinkii dambe waxa laga dareemayaa xawli aad u xoogan ayaanu ku eegnaa barnaamijkeena 2019 waxyaabihii ka qabsoomay magaalada Buuhoodle barnaamijka waxa ay soo diyaariyay aniga Xuseen Xasan Cadda haatan waxaan ku guda jirnaa bartamaanka ka guda jirnaa barnaamijkeeni tabinta tooska ah ee 2019 قبها جناسية مقالة بوهول ده هذي هلا عروين كي يصيدوا كلا قبها كلا دونا جناسية يا حول بدون كده موحى يوسف بدنيين مقالة بوهول ده حرمتها قبل كعين وجهورين وحنيجي إنه قبها كلا دونا جناسية دوان كير قال مقالة بوهول ده تذكر جناسية يا شيء يتوصل وحيلوها هذا تلفزيون كعالمي ككالسن تيفي وحيقر بحنا كبر كسيين haatan ganacsiga meesha uu marayo magaalada Buuhoodle iyadoo muddooyinkii hore ganacsiga Buuhoodle aad u liitay haatan laga dareemayo kor u kac aad u xooggan waa kuwan ganacsadayaasha oo ka hadlay arrimahaasi أنا حاول أجناسية دولة إنجليزي كوري أما إنجليزي أما ده تجسون عليه يا سين سنتا قيم طلبات تجتو أو كفون حق عبد الجلي بلاس أكتسا تجتو كمان ده يكون قيم حق المسجع ولي إن سير كلا قيم كمان فوتوغرافر أما ورياش اللي يساعده دامنا قيبت اليوم بس السنتا قيبت طلبات حمرنا على عوضهم وأي تدخل قاد اللي يسمونه ما نقطع وجوته أما نقطع ما وريج وجوته شباب ما هو هنا قطع كا عملية تدين وصول وينك سوى ما هو استوريسين وريسين ما نشاء أو شركة اليوم سنتر وفي مجالد وضع عابد بانيدا وبدأ مجالد في تشيلسة وكان ساي وضع سابسن خيالها سموار أما حاسات أما إلكترونية وقلن مجالد مدوني قبل كل نهار سعراء سلوك كله على أوضان ومشوك بيك مغنية مجالد الإلكترونية Saabsan sida kalluunka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز هراء مقعي هو محمد علي يوسف مركز لها عروة ريال بوهولة نهانتي مركز هراء حنوم هالعلمية بعض صحافة حسين حسن يو انتي كلا لسعتها دان كور بحيو عروضا يو هرمر كذا aad buu wanaagsan ma sha Allah bal wajira alxamdulillah rabbil alamin ganacsigu waa kala socdaa arwo cusub oo aad u shaqeynaysa boqolkiiba boqol ganacsigeeduna aad u fiican yahay waxyaalaha keenana waxa kamid ah dharka kabaha shoppingka iyo waxyaalaha la midka sida sarifka lacagaha oo kale kala bedelka aad banu shaqeynaysaa alxamdulillah rabbil alamin qolkii ka waran barganacsiga balka soo soconaya xawligiisa ganacsiga xawligiisu sidiisa waa waqti ruuxantii waxa la oran karaa hadda aad ma sha Allah wuu fiican yahay qolkii 7 waa fiican yahay qolkii 80 alxamdulillah rabbil alamin wuu shaqeynayaa waxa la yiraahdo xadiga hadda haysto caqabado taagan ma jirto isku cambuur shaqeynaya waqtigu marmar waa isbedela oo de waqtigu hoos waa dhacwa jira marmar waa yimaada laakiin wali wax dhibaato ma aan dareemin waxaan rabaa inaan marka sideedaad runtii waxay magaalada ku soo kordhisay waxaan ku raahdaayay faa'iidooyin fara badan haday tahay xagga dharka iyo kabaha oo baahi weyn loo qabay gobolkan hagaag intaan ka imaanay qaybiga kala duwan ee ganacsiga gobolka aan eegno ganacsiga kala duwan ee ku soo biiray muddooyinkii dambe Buuhoodle dhinaca sidoo kale kafeteeriyada kala duwan New Race aan kafeteeriya waxay ka mid tahay meelaha ganacsiga Buuhoodle sida weyn ugu soo kordhay waxaana ka hirgeliyay magaalada Buuhoodle hudheelkan casriga ah isla markaana laga helayo dhammaan wax kasta oo qofka bini'aadanka u baahan yahay ganacsade Axmed Saciid Aayir oo kamid ah ganacsatada weyn ee Buuhoodle ayaa ka hirgeliyay hudheelkan casriga ah oo isla markaana baahiyo badan dadku ay u qabeen in hotel noocan oo kale laga hirgeliyo magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn مقاحدا
ama restaurantigani waa marka hore waa adeeg bulsho oo aan ugu talagalnay inaan uga faa'iideyno dadka deegaanka ku nool iyo nawaaxigiisa runtii intii awooddayada ahayd waxaannu isnidhi waxbaad qabateen laakiin kolley waxay la tahay waxaa ka warbixin doonaa customariska ama dadka ka soo qayb galay xafladda runtii waxaannu diyaarinay hoolkan aynu maanta joogno oo ah hoolkii aan ugu talagalnay shirarka ama qaybaha miitinka waxaannu kaloo diyaarinay qaybtii kafeteriga oo aan ugu talagalnay in iyadana laga helo cuntada fudud waxaannu kaloo diyaarinay hoolalkii cuntada ama xafladaha ama casuumadaha oo aan ugu talagalnay iyagana haddii ugu yaraan ay soo kulanto 5 casuumadood iyo in ka badan ama 10 iyadana aanu ballan qaadano insha allahu tacaala inaannu hal mar fulino intaa waxaa raaca hoolalkii kale ee cuntada waxaa raaca qaybihii cawayska iyo barxadaha nasashada oo iyagana aanu u diyaarinay maxaan ku dhahdaa dadka customerska iyaga ah iyagana waxaan kula talinaynaa ganacsigu waa noocyo badan yahay ganacsigan restaurantigu waa service wey marka serviceka deegaankeennan aad loogama yaqaana serviceka inkastoo hadda restaurantigan rice nashqado badan iyo maskax badan iyo aqoon badan la geliyey oo dad cilmi u leh ay sameeyeen haddana deegaankeennan waa deegaan aan laga aqoon serviceka marka servicekuna wuxuu u baahan yahay ilaalin badan taana waan kula talinaynaa inay aad u ilaaliyaan waxaan kaloo u sheegaynaa bulshada reer Buuhoodle hadday tahay ganacsi iyo hadday tahay horumar wax kasta waxay ku xidhan yihiin nabadgelyada inta badan wufuudda iyo dadka magaalada dabadeeda nooga yimaada waa badnaayeen waad ka xishoonaysaa qofka waxa laga yaabaa haddii maalinkii aad guryaha geyso lagu casuumo dee habeenkii guryo la iskuma casuumo xitaa haddaadan casuumayn meel sharaab iyo shaah fiican iyo sheeko wacan iyo bilic leh iyo iliqabatin ma lahayn runtii aad baan ugu farxay markii aan soo galay isha aan la maray السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولي حفوظ جنا برنامج كريم تبين تتوس كايدو ستة صادق كيما نسي مقالة بوهولة حرمتها قبل كعين جامعة ضدها فرع إذا مقالة بوهولة ياسير رسمية كاملة جامعة لقصة إرجلية مقالة بوهولة جامعة وإذا كوباي ونو قبائل جامعة عن أوكرا لقى إرجلية مقالة بوهولة جامعة فرتان كذا وحكي قبل وفتي وزراء وكي متجروا وكسرنا مدين كذا مبوهولة معمولك جامعة يكور بحية مهمة جامعة أولادها هاي إن لقى إرجلية مقالة بوهولة حرمتها قبل كعين جامعة الله international university وحاول فري سنة كمركها على وقت المية طبعاً وحاول يفري مقالمات قبل كصومالي منتشر جامعة حاول أساسي ومؤسس منها ولا أما ويانا يستوي أو كفكري إن أي فران وحركة بدلان أقول سيارة برشلونة سيدا درتد جامعة الله international university waxay aqoonsi buuxda ka heshay isla markaa 2012 wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ujeedooyinka iyo ahdaafta loo aasaasay ama loo furay waxaa ka mid ah in jaamacaddu u adeegto deegaanka kana samata bixiso baahiyaha waxbarashada iyo duruufaha kale baahiyaha waxbarashada markaan leenahay waa maxay qofkii waxaa jiri jirtay heer ardayda sekandariyada ka baxda ay u aadi jireen deegaano kale waxbarashada ay u aadi jireen jaamacada ay jaamacada u dooni kareen ama waddanka dibadiisa ama dalka gudihiisa marka xubno hadda jaamacaddii ka socda xarunteedii weyneed inay lama joogaan taana waa ka cudurdaaranaynaa xafladda furitaanka jaamacadda Allahi University caqabada waa laga soo gudbay maanta waxaa ku yaala iskuulo waaweyn oo sanad ku dambeeyay hadda sanadkan foonfoorka waxaa fadhiistay 200 oo arday wax ku dhow yaa foonfoor kaliya fadhiistay waa foonfoor kaliya badan anagu iskuulka dhan foonfoorada markaa gobolka jiray lixaan waay hadda 200 wax ku dhow fadhiistay maxaa markaa ay ku tilmaamaysaa in laga soo gudbay caqabadii dugsiyada hoose dhexe iyo sare marka koowaad waan soo dhaweynaa jaamacadda waxaan leenahay Buuhoodle International University soo dhawow
waxaan kugu soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala haddaan nahay bahdii waxbarashada badankooda ardaysiga kulliyada ay deegaano kale u dooran jireen waxbarashada waxaan leeyahay jaamacaddan iyo jaamacaddeenii horeba aynu ka faa'iidaysano deegaankeena ayna imaansano tacliineed waa waxyaabaha qofka maskaxdiisa uu ku raaxaysanayo inuu goobjoog ka ahaado ama uu arko ama uu maqlaba waa soo dhaweynaynaa khayr allaha siiye ragga inoo maamuleyna waa ku mahadsan yihiin run ahaantii aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladan qiimaha iyo qaayaha leh oo lagu daafurayo jaamacadda wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Puntland oo ku sugnaa Buuhoodle ayaa waxa ay dhagax dhigeen bari station oo yeelanaysa magaalada Buuhoodle halka saldhigga Buuhoodle uu yahay saldhig aad u yar waxayna sheegeen in haatan si rasmi ah u dhagax dhigayaan saldhig cusub oo laga hirgelinayo magaalada Buuhoodle waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha Buuhoodle oo soo dhaweeyay saldhiggan cusub ee maanta sida rasmiga loogu dhagax dhigay oo imaatinkooda aan ku faraxsanahay wasiirada muddada dheer ee imika 20 iyo dhowrka casha gobolka u joogay horumarintiisa iyo waxqabadkiisa hawlo badan ka qabtay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan soo dhaweynayaa barasaabka gobolka iyo ku-xigeenkiisa waxaan soo dhaweynayaa dhammaan ciidanka booliska anigoo taliyahoodiiya aad iyo aad baan ugu maartay shaqada gobolka iyo maamulka gobolkuba maanta waxaanu dhagax dhigaynaa jeelkii gobolka Cayn oo muddo badan ba dhulka bulshadu ay iibisay laakiin qabyo ahay oo aan maartay u baahnaa in la dhiso baan maanta dhagaxna waxaana maanta dhagax dhigay tiimkii nooga yimid maamulka Puntland dhigno xabsigii ama jeelkii gobolka Cayn oo bulshada qaabqaabeen dhiseen bilaabeen waa asaas waxay bilaabeen maaha jeel la dhisay laakiin ilaa xad way dilaaleen khayraha siiyo waxaan leeyahay mashruucyada bilowdeen waxqabadkii wuu bilowday insha Allah aan la imaanay markaan gobolka imaanay waxaan aaminsanahay kan inuu soo noqonayn kii ugu horreeyay oo noqon doona kii ugu dambeeyay inuu noqon doona kii ugu horreeyay waxaan aaminsanahay mashaariic fara badan inay soo socdaan waxaan u bishaarnaa dhammaan deegaanka dadka degan iyo gobolkaba in waxyaalo badan iska bedeli doonaan tallaabadii ugu horreysay ee in la sameeyo deegaan iyo in mashaariicdii bilaabmadaan waxaana kaloo waxaa maanta aanu bilownay mashaariicdii inaanu dhagxan dhigno oo aan ahayn dhagxan la dhigaya aynu nahay dhismayaal la bilaabaya haddii ilaahay ka dhigo oo ay tani kow ka tahay iyo kuwa kale aanu hadda u sii soconno masalan ay ka mid yahay xabsigu iyo kuwa faraha badan dugsiyadii baa ka mid ah qaarkood iyaga laftooda aanu eegi doono dayactirka iyo hawlaha lagu samayn doono ama dhismaha qaarkood waxaanu marka idinku bishaaraynaynaa hore waxaa loo oran jiray Puntland dowladda Puntland wax ma qabato ama waxba uma tarto gobolkan inkastoo la ogyahay waxyaabihii badnaa ee la qabtay gobolkan laga qabtay inay ahaayeen dadka kaliya wax ka qabtay laakiin maanta waa markhaati baad idinku ka tihiin in aanu bilownay dhaqsan hawshan loo dhammayn doono haddii ilaahay ka dhigo mashaariic badan oo isku daba xigtaana ay iman doonto waxaan aad u hambaliyeynayaa halkan waxaan dhagax dhigaynaa dhismaha cusub saldhigga Buuhoodle oo ka mid ah mashaariic dowladda Puntland ay ka fulin doonto ama dhismayaal mid ka mid ah dhismayaasha halkan laga fulin doono insha Allah dowladda Puntland saaka waxaan dhagax dhignay saldhigga dhexe insha Allah meel kale aan dhagax dhigi doonaa waxaan rajaynaynaa wixii hadda laga bilaabo inay Buuhoodle yeelato saldhig cusub iyadoo deegaanka ama gobolka ay ka jirtay dhibaato dadka maxay tahay dambiilayaasha maaragtay ay dhacdo in garowga maxay tahay loo dhaadhicin jiray la geyn jiray iyadoo hawl badan laga mudan jiray in wixii hadda laga bilaabo ama hadda ka dambeeya insha Allah halkan ay yeelan doonto degmada Buuhoodle iyo gobolkuba ay yeelan doonaan xabsi ama saldhig booliisa iyadoo ku xigi doono aan dhagax dhigi doono xabsigii isaguna marka saldhiggii booliiska iyo xabsigiiba labadiiba insha Allah saaka ayaan dhagax dhigi doonaa hadda waxaan dhagax dhignay saldhiggii booliiska dhismihiina si dhaqso ayuu bilaabin doonaa insha Allah waxaan ugu bishaaranaynaa dadka
daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dibinta tooska ah waxyaabihii ka qabsoomay Buuhoodle garoonka diyaaradaha magaalada Buuhoodle ayaa in muddo aan shaqeyn kadib markii ay joogsameen duulimaadadii aadi jiray Muqdisho to Buuhoodle haatan garoonka waxaa ka soo daatir aad u badan oo lagu dhisay garoonka ganacsatada magaalada Buuhoodle ayaa ka soo dhaweeyay garoonka sida rasmiga maanta dib u bilaabay duulimaadadiisa qaar ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle oo la hadlay telefishinka Kalsan ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in garoonkii Buuhoodle maanta dayactir badan lagu wado isla markaana uu dib u bilaabay duulimaadadiisi waa kuwan qaar ka mid ah shaqaalaha garoonka oo arrimahaasi ka hadlaya shaqa ayaa ka socota shaqada ka socota waxa weeye airportka waxa jooga qalabkii oo laascanood laga keenay rugleydii iyo gradertii iyo gaarigii afraarka hado siday iyo baalihii iyo goynaya cagafta shaqada ayaa ka socota ilaa 2 isbuucna waa soconaysaa hadda shalayta waxaan cagdinay 100 mitir waxaa galay 120 load walina waa qabyo airportku uu dayacmay wuu degay dhirbaa ka dhex baxday bahalaha qoday dayactir baa ku socda hadda meesha qarashka galaya $30,000 uu dhaafayaa arakaawada galaysa iyo biyaha gala iyo qalabka waxa lagu soo kireeyay shay walba waxa uu ku baxana qoraalkeeda ayaan soo gudbinaynaa waxaan u baaqayaa cod dheer iyo cod gaban baa ugu baaqay dawladda federaalka madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ra'iisul baarlamaanka xubnaha kale xildhibaanada wasiirada annaga dawladdu dulmi badan baan ku qabnaa waxaanu ku jirnaa hal laba midig la dhagaday dhanno ma fayooba halka kurska noo banaano noo fayow airportkii waa u jeedaan howlgalka iyo shaqada ka socota dawladana xuquuq baanu ku leenahay arrimaha bulshada waanu ma haysano caafimaad ma haysano waxbarasho ma haysano airport ma haysano wax aanu haysano ma jirto marka codka la raadinayana xildhibaanada waa naloo soo diraa way naga qaadaan naguma soo noqdaan inay arrimahayaga si gaar u eegto hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadday waxqabad tahay hadday airport tahay inay si gaar arrimaheeda u eegto waayo dalkaad u dhaarateen baanu ku jiraa airport xisaabihiisii ما شاء الله واحد بدن بالغ قبطي ايربورت كدواد aragtaan waxa laga qabtay waxa anaga soo gala airportka ay diyaaradu bixiyaan waxana deyn baan ku bixinaa waxna wax qabad baan munaasabadan oo ahayd munaasabadii sida weyn loogu soo dhaweynayay gudoomiyaha cusub ee degmada Buuhoodle ee maamul goboleedka Puntland Maxamed Nuux oo hadda loo doortay gudoomiyaha cusub ee degmada Buuhoodle ee maamul goboleedka Puntland waxaana munaasabadii lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha ka qayb galay waxgarad iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan gobolka Cayn waana isbedelkii dhanka 2019 ku soo kordha gobolka Cayn waana gudoomiye dhalinyaro oo wax badan ka bedeli doona xaaladda gobolka Cayn qaar kamid ah waxgaradka ayaa si rasmi ah u soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub waxaana hadladoodii kamid ahaa anugu xasan ahaan haddaanu kulannana golaha dhaqanka iyo odayaal ahaan baanu la shaqaynaya hadduu isagoo bahda waxbarashada cid la shaqaysa ka doonaya ismudannana waa kula shaqaynayna annagoo bahda waxbarashada hadduu isagoo culimada ka doonaya cid la shaqaysa is aragnana bahda culimadana waa kula shaqaynaynaa gudoomiyaha guuleed barasaabta iyo barasaab ku-xigeenka 5 wasiir oo uu hogaaminayo Abdullaahi Xasan Gooble dalka noogu yimi iyo 4 xildhibaan iyo 2 ka dambeeyay wallaahi Puntland u jeesan kunti dadku garab taagan iyo magacaabis iyo xaflad lagu dhigay waxba ku tarinaysa kartidaada la rabaa sinkii bay ku noqonaysaa camalkaaga aakhirana mas'uuliyadanaad qaaday way ka mid tahayo gudoomiyaha iyo maamulkana waan soo dhaweynaynaa iyo bulshadan iyaduna ka raali noqotay inay ka soo qayb gasho xafladda waxaan leeyahay hambalyo waa kuwa hambalyeynayna wax kuu raacaba waa kuwa hambalyeynayna wiiladu rag badanina waa kaa horreeyey nin walbana tilmaam buu lahaa ilaahay ijaabada fiican ha kugu beego inaan ku hambalyeeyo labada dhalinyarada ah ee cusub ee loo doortay gobolka hambalyaan dileen mar labaad inaad nagu garab istaagtaan waxaan idinka ballan qaadayaa kaaniga ahaan gudoomiyaha inaan la shaqeeyo muran iyo isqabqabsi dhexdeeda inuusan imaan sideedaba dadkuna haddii ay ku wada shaqeeyaan daacadnimo iyo waxqabad saxa iyo wixii la amray sideedii inay
u howlgeliyaan iskuma dhacaan. gudoomiyaha cusub ee gobolka soo dhaweyntiisa iyo hambalyeyntiisa iyo damaashaadkiisa ayay daaran tahay, walqalla ay u tahay. waxay kaloo walqal u tahay gudoomiyihii hore sagootintiisii ayay walqal u tahay. ugu dambeyntiina waxaa munaasabada ka hadlay oo mahad celiyay dadkan ka soo qayb galay munaasabada barasaabka cusub ee loo magacaabay degmada Buuhoodle. marka labaadna waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha dowladda Puntland iyo ku-xigeenkiisa madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani iyo madaxweyne Axmed Cilmi Cusmaan oo gartay xilkan isla markaasna ay magacaabay. marka koobaad xilkaas la magacaabay madaxda dowladda Puntland ay magacawday waan ka aqbalay. insha Allah taala gobolkana waan ugu shaqayn doonaa. marka labaad waxaan isna u mahad celinayaa gudoomiyihii xilka iga horeeyay Cabdirasaaq Xaaji Xasan Xundub oo meel fiican gobolka soo gaarsiiyay isla markaana aasaasay hanaan dawladnimo oo lagu shaqayn karo. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الانتاسي وحان كسو قبقبيننا برامج كاني تبين تتوسكا هيدا كلا سعودتين تلفشيك عالمية كالسن تي في حارون تصدحي وكلي هاي مقالة بوهولد برامج كوحاين يسو دادهني يسمر قرال كاني دكتبني أنيقو حسين حسن عدي بعض كالسن تي في أو بوهولد وحايد ليلة هاي انتان كوكل مدونا برامج كان مدلا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.